annagoo ah xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka Soomaaliland ka kooban guurtida iyo wakiilada ee laga soo doorto gobolada Awdal iyo Salel waxa aanu halkan ku soo gudbinaynaa mowqifka aanu ka qabno is-afgaradka ay xukuumadda Soomaaliland iyo Itoobiya gaareen 1 January 2024 ee ka dhacay Addis Ababa is-afgaradkaas oo si toos ah saameyn ugu leh dadweynaha na soo doortay ee aanu matalo markii aanu aragnay hadallada iskhilaafsan ee ka soo baxay Soomaaliland iyo Itoobiya ee ku saabsan is-afgaradka memorandum understanding oo muujinaya madmadow iyo hubitaan la'aan annaga oo ogsoon taariikhda guunka ah ee geyiga Awdal iyo Salel ee ku astaysan tusaale ahaan saldanadihii Ifaat iyo Adal ee soo taxraa qarnigii 13aad iyo ka hor oo ku xardhan buugta taariikhda maguurtada ah annaga oo og muhiimadda uu geyigani u leeyahay ummadda eebba ku uumay Awdal iyo Salel shacabka Soomaaliland guud ahaan ummadda isirka Soomaaliyeed iyo ummadda islaamka ah ee ku nool geeska Afrika iyo gacanka Carbeed annaga oo ka dheregsan halganadii istaba joogga ahaa ee ummaddu u soo martay ilaalinta xeebaha Awdal iyo Salel qarniyada badan annaga oo maanka ku hayna hadallada istaba joogga ah ee ka soo baxay mas'uuliyiin iyo aqoonyahan Itoobiyaan ah oo sheegay lahaanshaha xeebaha Saylac iyaga oo ku dooday taariikh aan jirin oo aan sugnaansho lahayn taas oo aanu ognahay in ay qayb ka tahay damac qoto dheer oo halis ah markii aanu aragnay in mas'uuliyiinta Itoobiya sheegeen in is-afgaradku u ogolaaday marin ay badda u helaan oo ay iyagu leeyihiin markii aanu aragnay in lagu xadgudbayo mabda'a saldhigga u ah jiritaanka Soomaaliland ee ah tala wadaagga oo ka mid ah qodobada uu dastuurku mamnuucay in xitaa wax ka bedel lagu sameeyo iyadoo oo aan xukuumaddu kala yeelan tala wadaag deegaanka Awdal iyo Salel markii aanu aragnay in aanay jirin wax xog ah oo sugan oo ay xukuumaddu siisay shacabka Soomaaliland guud ahaan iyo gaar ahaan hay'adaha sharci dejinta ee u xil saaran korjoogteynta xukuumadda sida ku cad qodobka 53aad iyo 61aad ee dastuurka Soomaaliland markii aanu aragnay in xeerarka caalamiga ahi mamnuuceen in heshiis laba dawladood ka dhaxeeya laga dhigo sir eeg Vienna Convention of the Law Treaties 1969 isla markaana ogsoon cawaaqibka ay yeelan karaan heshiisyada sirta ah ee khuseeya dhulka annaga oo ka duulayna maqaasidda shareecada islaamka ee ilaalinta dhulka muslimiinta si gaar ahna u og taariikhda ay xeebaha Saylac u leeyihiin ummadda islaamka ah guud ahaanteed annaga oo ka duulayna qodobada 1 iyo 2 ee dastuurka oo lala akhrinayo qodobka 127 oo mamnuucaya in waxyeelo loo geysto ama la kala dhantaalo israacsanaanta dhul ahaaneed ee Somaliland territorial integrity annaga oo ogsoon waajibka dastuuriga iyo mas'uuliyiinta naga saaran shacabka na soo doortay ee gobolka Awdal iyo Salel waxa aanu qaadanay go'aanadan soo socda number 1 waxa aanu ka soo horjeednaa dhaqangelinta iyo faragelinta xukuumadda heshiiska ay Soomaaliland la gashay dawladda Itoobiya taariikhdu markay ahayd 1 January 2024 iyo heshiis kasta oo ka dhasha ama ka dheegma waxa aanu u aragnaa is-afgaradkaas mid aanu sharci ahayn oo ka soo horjeeda danta shacabka diintooda dastuurka ay ku heshiiyeen waxa aanu ugu baaqaynaa xukuumadda Soomaaliland inay ka noqoto is-afgaradkaas oo ay tala wadaag ka yeelato arrimaha masiiriga ah ee khuseeya jiilalka dambe boqolka sanadood soo socda cidda ummaddu u dooratay waxa aanu cadaynaynaa ururka jaamacadda carabta ururka islaamka urur goboleedka IGAD midowga Afrika iyo qaramada midoobay in shacabka Awdal iyo Salel aanay ogolayn in Itoobiya laga siiyo dhul bad marintoona geyiga Soomaaliland iyo Awdal iyo Salel dhammaan xildhibaanada labada gole way saxeexeen warqadaas ayaa dib looga akhriyo doonaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi